السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم أصحابتا خيارتا halkan aan mataqaanaa saaxiibaa ku nahay walaalkiin Abdiraxmaan Xuseen oo mataqaanaa halkan maanta aad idin ku soo dhaweynaya dhammaan asxaabta waan salaamayaa intaan halkan saaxiibaa ku nahay intaan sidoo kale ee khaaska ah saaxiibaa u nahay dhamaantiin waxaan rajeynayaa Ilaahay mataqaanaa cimri dheer caafimaad suban iyo cibaado wanaagsan Ilaahay mataqaanaa aqbalo ducada صاحب يا سولي هذا halkan waxaan doonaa maanta inaan ku sheekaysanay asxaabta saytiin oo balaqo xaaladaha ka warramo oo leeyahay oo bal soo dhawaada dhamaantiin soo dhawaada waan soo dhaweynaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan doonaa halkan maanta inaan bal isku wareysanay leeyahay oo xaaladaha ka warramo dadka qaar ba markay arkaan aniga oo qaba finaanad maxalli jiray Chelsea ah imay doonaan inaan ahay taageero Chelsea ah waraan Chelsea ma taageero garanto waan iska qabaa kaliya iska qabaa bal iyo warramo xaaladaha ka warramo oo mataqaanaa leeyahay Soomaali Maxamedey saytiin hal soo dhawaado bal intayna barnaamijka mataqaanaa inaan furnin iyo waxaan ka hadlayno waxaan doonaa maanta inaan bal hal hees ah oo heesaha khaaska ah loo qaado in keenna xooga gaarka iyo booliska inaan maanta ku furno bal barnaamijka aan sideyno hees waya oo xalli jiray qaran iyo heesaha booliska heesii hore nabar dhamaantood dadka nabar xalli jiray aan ku yar aan mataqaanaa ku yar naga dhageysano وطنك وفي عذبك وبيدك كدا هدين بيد كبود halkaas mataqaanaa liu bolis baan لكي وطنك بابي عزوكي كدا وديوني كان قالك كل علني كدا لك وحن انا كنت كلنا كدا وقليل الليسيو حباد قادنا في بالبادي انا هي يبولسكو اكيد اطي نبت بوتو وقليل الليسيو حباد قادنا في بالبادي انا هي يبولسكو هاتشو بانكا يا باريكي يا باقا وحن حيرنا هاي تشيلسي بلان هذا كقاتو بلو قرارتو خيالي بغلدا هنو لادن يبولسكو هاتشوغان بانكا يا باريكي يا باقا وحن حيرنا هاي bulshadayda wacanbaa ballan adag ka qaado mana ugu dhaarto ayaali bahlada xooga gaarka ah aad baan u salaamaya meel walba joogtaan ciidamada haliye iyo booliska nafta horeyaasha ay nafta hore shacabkooda aad baan u salaamaya sidoo kale shacabka sharafta leh xumad deegaanka aad baan u salaamaya waxaan mataqaanaa aanu ku furnay barnaamijkeena heestii xooga gaarka ciidamada booliska waan ku furnay dhammaan asxaabta waan salaamaya meel kastoo joogtaan walba joogtaan aad baan u salaamaya inta magacayga muuqayga garanaysa waxaan mataqaanaa aan rabnaa inaan maanta halkan barnaamijka ku daarsano asxaabta dhammaantood waxaan mar walba nahay abaqaan haliyadu rasaas kama bayraa markuu bila kidaash karo
كدا هالكا أمي كان صومي يانا مردشان جرين شو هالكا ناقة قوالكا أيا إنسان كلنا هاي هديهن متقناي oo ka saarniyo dadkii wala isku yimid waa la heshiiyay waa baan noqday ka aniyo intan yaa ka dhaxgoy meesha oo ka saara bal inta nugayla uma dhalan mabaqaan haliyadu qasaaska mama baydhaan markuu bila gidaash galo ka joog halkaa gelin markuu bila gidaash galo hee baacsan ka joog halkaa ayada babacsaooye yaana maragshaan reer nugayla uma dhalan hadda nin salaamaya guddiinba inta maqashay intaan maqlayn inta aragtay intaan arkaynaba soo dhawaada kulligiinba cadowga bayaqsado dibnigu bayriyo baqiitaana kuba ogi liyobooliskuma baran cadowga bayaqsado baqiitaana kuba ogi liyobooliskuma baran axmed aad baan kuu salaamaya taliya السلام عليكم احمد صاحب سلو ان حسن حلوه قاعد بكون سلوين يا صاحب سلو aad baan ku salaamayaa saaxiib seetay aad baan صاحب kugu fiicnay ma sha Allah aad baan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo mataqaanay halka barnaamijkan ay la qayb qaato mustaxiil baa joogtaa mudane haa sidoo kale saaxiib aad baan ku taageeraa mustaxiil baan joogaa xaggaasan kala socdaa qalbiga saaxib ka salaamay gacanta waa qalfoofa gacan qalbigan ka salaamay adiga reer mustaxiil baad baan salaamaya iyo mataqaanay dhammaan asxaabta halkan bilski daawanaysa ee mataqaanay nagu xidhan saaxib soo dhawow ii waran oo maxaad nagu soo gudbinaysaa bal ka waran reer mustaxiil iyo magaaladii mustaqiim hayd iyo ka waran sheelaya saaxib aad baa loo fiicanya maasha allah magaalada mustaxiil ay iska fiican tahay iyo adiga mustaqiim baa loo bedelay marka barnaamijka livi booliska ajiraan leenahay quruxsiga ajiraan leenahay aad baad u mahadsan tahay muwaadin xalaala baa tahay saaxib livi boolisku ha jiro ha jooga aad baan kuu salaamaya adiga reer mustaqiim ba aad baan ii salaamaya dhammaantiinba soo dhawow saaxib gacmo furan ku soo dhawow dadka dhammaan ugu salaan asxaabta iyo dhammaan dhalinyarada ugu salaan iyo cid walbaba waan ku soo dhaweynayaa saaxib aad baad u mahadsan tahay axmed sidoo kale saaxiib adiga ee dheetarka waa idin salaamay aad ninkii baan saaxib qarsoon kuu salaamay aad baan saaxib kaga qaadinaa dhammaantana aad baan kaga qaadinaa saaxib waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay aad buu axmed u mahadsan yahay waa mid ka mid ah asxaabteena mataqaanaa ee deegaanka joogta oo ku sugan halka mustaqiim magaaladii hore mustaqiim waan soo dhaweynaa saaxiibkay axmed waxaan xiranahay bulshadayda wacanba ballanada ka qaado dana ugu dharto ayaan bahlada iyo baraykiyo baaga waxaan xiranahay bulshadayda wacanba ballanada ka qaado dana ugu dharto bulshadayda wacan baan ballan adag ka qaadoon ka ilaalin bahlada laga ilaalinayo waa cadaawaha iyo cid walba mataqaanaa ee shacabka dhibaato ku ah waana soo dhaweynaynaa ahliyada ciidanka liyo booliska waana garab taagannahay intii naftooda u weyday difaaca shacabkooda ilaahay naxariista waasaca siiyo intii mataqaanaa ay u dhaawacantana ilaahay mataqaanaa laxaadkooda ha u caafiyo carruurtii iyo agoontii iyo awlaaddii ay ka tageen ilaahay mataqaanaa dee qalbiga ha nuuriyo annagana sinjiimaan dhammaanteed ha naga siiyo waxaa sidoo kale mataqaanaa aan rabnaa inaan halkan aan waxayna oon garab taagannahay mar walbaba iyo meel walba ay joogaanba ciidanka liyo boolisku ma aha ciidan qabiil ciidan shacab weeye meel walba ay joogaan mataqaanaa ciidanku waa ciidan shacabka u taagan waa horumarkii ugu taagan yihiin nabadgelyada ugu taagan yihiin ciidanku waa xogii shacabka waa kuwa mar walba garab taagan shacabka meel walba ay joogaanna ha jiraan oo ha joogaan baan leenahay waan taageersannahay habeen iyo maalinba iyagana mataqaanaa garabkooda ciidanku dadka qaar ba waxay ka aaminsan yihiin ciidanka fikir ah inay ciidan qabiil yihiin ma aaminsanin ma ahe waa dad mataqaanaa fikirkaas si cadaawadnimo oo qalbigooda ugu joogaan marka waxaan leenahay kuwaas iyaga ah liyo boolisku hadday qabiil yihiin xuduud ka gees ilaa ka gees qabiilkooda ma dayaan waxaa dega soomaali ciidanku waa ciidan soomaaliyeed waa ciidan bulshada wasma weeyaan
وعيدا عن عندنا لكلا لهين وعيدا متقناي الشعب بسميه deegaanka soomaalida inay xuduudkiisa difaacaan shacabkiisa ay difaacaan bay u taagan yihiin ciidanku ma aha ciidan qabiil haddii aad aaminsan tahay fikir ah ciidanku inuu ciidan qabiil yahay taas aad baad u khaldan tahay inaad martaqanay wax la kala saarana waa muhiim ciidanku waxay u taagan yihiin waa horumarkii bulshada waa maxaa dhihi jiray waa horumarkii bulshada waa maxaa dhihi jiray waxay u taagan yihiin mar walbaba wanaaggii iyo waxqabadkii iyo taageeradii iyo maxaa dhihi jiray mar walbaba inay ku xidhnaadaan shacabka oo ay shacabkooda garab joogaan waxaanu weli bartanka kaga sii jirnaa barnaamijkeenii taageerada ciidanka iyo booliska ah aynu bartanka kaga sii jiraa dhammaan asxaabtii intana daawanaysa iyo inta maxaa dhihi jiray halka nagala socotaba waan salaamaya waan soo dhaweynaya giddigiinba waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan haddana ku xigsiinaa mid ka mid ah heesihii mataqanaa ee talantaaliga ah ee ciidanka iyo booliska loo qaadayey yaanu heeskii labaad ee barnaamijkeena ama rabnaa inaan ciidankeena iyo booliska loo qaado hadda ka hor waa heestii ay ku luqeynayeen qadarasnimo iyo maxaa dhihi jiray gabadhii oo la dhihi jiray fanaanadii soomaaliyeed oo qaaliga ahayd oo yurubeeyo marka golofka loo kaco buraha habeena bumakadigisyada liyugo siyada liyugo guriskiiba maanta iga maqan shit guriskiiba iga maqan lagu laado marka golofka loo kaco buraha habeena bumakadigisyada liyugo geesiyada liyugo Kurayaha hawada galo ama fika baadada loodisa bixiyo geesiyada qalbiga qof walba oo muwaadin qalbiga dhaqaaq marka heesaan gaari doonaa adkaysta shaandada adkaysta shaandada adkaysta shaandada shaandada adkaysta gaari doonaa barwaaqyo goonaba bitaale gesiyada liigo hubtayada haratiyo u adkaysta shaandada u adkaysta shaandada u adkaysta shaandada gesiyada liigo waad u adkaysteene u adkaysta ha guulaystaan liigo boolisku habeen iyo maalinba ayagaan nahay garabkooda nahay habeen iyo maalinba waanu taageersannahay liigo boolisku ha guulaysto liigo boolisku guul iyo gobonimo liigo boolisku waad guulaysateen waana jiraysaa insha allah ilaahay nahay garabka naga galo waana soo dhaweynaa asxaabta dhammaantiinba saraakiisha liigo booliska waan
garab iyo jacal mar walba iyo meel walba garab iyo jacal taageero boqolkiiba boqol taageero boqolkiiba boqol السلام عليكم المرة لبعض المرة saddexaad baa asxaabta aad baan iisoo dhaweynaya waan salaamayaa waad maqlayseen tayada haraadka iyo u adkaysta shaqada u adkaystay liyo boolisku way ka soo baxeen xilkii loo idmaday waxaa dhihi jiray aad bayna mahadsanyihiin saraakiisha ciidanka liyo booliska iyo dhammaan ciidanka qalabka sida liyo boolisku mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol abaalkiin ilaah waa gudi karaa shacabka deegaanka dhammaantii inagoo isku duwan waxaan leenahay liyo boolisku waa mid mar walbaba u taagan danta shacabka iyo danta mataqaanaa horumarka deegaanka aynu weli ku soconno waxaan haddana soo qaban doonaa
inta aan wad ku helin adaan heegan ku ahay dalkaygu waa mid ka mid ah midkan si loo qaaday ciidankeena xoogga gaarka iyo booliska aad bayna ugu mahadsan yihiin kooxdii mataqaanaa hormuudka nabadda ee heestan ku luqeynaysay waa mahadsan yihiin hormuud baandi iyo dhammaan asxaabtii kale mataqaanaa ka qayb qaadatay abwaanka sameeyey iyo dhammaan hoblada kooxdan diyaarisay waa mahadsan yihiin weli waxaanu sii dhex mushaaxaynaa barnaamijkeenii khaaska ahayn ugu talagalay taageerada ciidanka iyo booliska barnaamijku waa taageerada ciidanka iyo booliska iyo mataqaanaa garab istaag inaanu garab istaagsannahay inaan adduunka tusno ciidanka anagu mar walba anaga garab badannahay waanu garab taagannahay habeen iyo maalin meel walba ay joogaan waan taageeranahay buuxda waxaan soo dhaweynayaa كده كده كده
markaasoo joogsado ayay jabaqda daysaa markaasoo joogsado ayay jabaqda daysaa sanada ugu jilahay miyuu samaha jecelo salka inuu joojiyo nabada nabada jiirayaanahay nabada nabada jiirayaanahay jeeni qaatiyo sanada ugu jilahay miyuu samaha jecelo salka inuu joojiyo nabada nabada jiirayaanahay nabada anfarka ka wareegsan markaan soo horjoogsado ayuu jabaqdiisa waa xaqiiq aad baad u mahadsan tahay aad baad saaxiib u mahadsan tahay amiyare aad baan saaxiib ku salaamaya aad baan ku salaamaya meel kastaba ha joogtee anfarta jaha wareegsan markaan soo horjoogsado ayay jabaqdiisa anfar indhaha markii masaafiyo jabaqdiin جلجلعنا ومدلم واللبسدو جلجلعنا ومدلم جيبسدو رفيكي دراتي مكمجيرو جلالنا واللبسدو جلجلعنا ومدلم جلالنا واللبسدو جلجلعنا ومدلم jeeni qaatiyo sanada ugu jilahay miyuu samaha jecelo salka inuu joojiyo nabada nabada jiirayaanahay nabada nabada jiirayaanahay bolis halkaas naga qoran gudaha qalbiga naga qoran iyo ayaanteena iyo karsanka yeelko rudusiya xarkeena anku aana maalo ciidankeena
كنوحي ولقا قلت أبا صاحب كو سلام يا نقول هنا كو سدريا عبد الله رايو أبا صاحب كو سلام يا صاحب طبعا أصحابك سلام يا أنت هلكن ما يدون نسيب أصحاب تعالوا يا هايبا إذا كان عباسي يقو صاحب أدمن كا يقاوي حد لبونا كو سدريا صاحب الصوت عاني مانو عدوي مجرو عدوي هتشبو عدوي هتشبو مغني بوليس صبح يصون عامي مانو عدوي مجرو عدوي هتشبو عدوي هتشبو مغني بوليس القشاش عليك ترى مريي باطاي عنفر عليك ترى ولا أبصره عقول يومي باطاي زيادة كمية عنفر عليك ترى حتى مريي باطاي حتى مريي باطاي باسي أدنى كل سلام يا طيب جرب أم سلام القشاش أكويه أكلي والنهتاوي اسميو شرفيو عظيمتو وليا القشاش أكويه أكسدي والنهتاوي قالوا كسيو عدو يوجارو الفرق اللي ذاك الوقتين إذا كان يوجارو السوشيال جري أصحاب المنتن هل دريمان إنا معلن كنا يقرب تغيرنا نقول هل دريمان عرفتك هكتجيه أو عيب لا أنبغي يا دفاع إذا ماذا عرفتك هكتجيه أو عيب لا أنبغي يا انت يا ذا الدفاع اذا ماذا تغرون قربتي هذا هو سلام يا قرب
haddaan laba quran nahay buuri 6,660 iyo 6 waan ku filannahay waana run iyo boolisku hadday laba yihiin ay ogtihiin meel walba ay tagaanba way war saxay ka keeneen mar dhow waxaa jirtay mataqaanaa anfarta inay dagaal gaadmo ah oo nacasnimaha fulinimo jamhad iyo ciidankooda oo wada socda ay ciidankeena liga booliska ah iyo halkaa shacabkii jooga halkaa mataqaanaa galbeedka city magaalooyinka degmooyinka iyo sida khaldan hadda ka hor loogu daray anfarta ay si gaadma usoo weerareen cashir lam ilaawaana waana tusi doonaa haddii la yidhahdo shacabka cityna waa shacabka yagii marnaba ma ogolaan doono inay cundufo iyo cadheytu iyo garbaciisii ay kasii mid ahaadaan anfar dowladda federaalka way timid dadkiina mardhow waxay aftibaa la qaadi dadkuna meel aysan iyagu ogoleen kasii mid ahaan maayaan insha allah waxaan rajeynaa mar dhow inay dadka galbeedka city ay usoo noqdaan dhulkoodii ay kusoo laabtaan insha allah iyo deegaankoodii soomaalida waa dad soomaali ah waa dad mataqaanaa deegaanka u dhashay waa dad shalay si khaldan loogu daray halkaas marna ma ogolaan doono mana yeeli doono mataqaanaa ka shacab ahaan midka ruuxa feerfeer jooga ilaa iyo ka mooyaala jooga ilaa iyo ka jooga galxamar iyo wadheeri ka jooga waan ka simannahay galbeedka city degmooyinkaas waa degmooyinka soomaaliyeed ma aha dhowr ay canfar leedahay ma aha mana noqon doono si khaldan baa loo xiiri waxaan intaan raacinayaa xukuumadda deegaanka ugu horreeya madaxweyne mustafe waan ku taageersanahay arrinkaas aad halkaad ka istaagtay hawshaas ilaahina garabkaada ha galo adiyo golahaaga deegaankaba halkaad ka istaagteenna waa mid aan marka shacab ahaan aan taageero buuxooyin ku nahay marna ma ogolaan doono mana yeeli doono waana ka dhiibiyeynaa ka shacab ahaan ciidankaanu garab taagannahay ka shacab ahaanna dee shacabka kaleeta ee mataqaanaa dhibaatada wada dhibka ay wadaan haddii ay joojin waayaan annaguna ka shacab ahaan wixii dhacaa manan geysano ayagaa mas-uuliyadda leh marnaba uma dulqaadan doona hal qof oo soomaaliyeed oo dadkaas galbeedka city masaakiinta inay mar dambe ruux iyo dib u dulqaamin macnaha annaguna inaanu nabadda ka shaqeyno ka deegaan ahaan oonu dhahno deegaanada dariska aanu dhahno dadkii dariska noo ahaa ee mataqaanaa cafarta ku kaayeen ee dadka iyaga sugaan ma yeeli doono mana ogolaan doono tallaabo cad baan ka qaadayna arrinkaas haddii ay moodayaan kuwaas inay ehlaan yihiin annaga eelo ah annaga garab taagno walaaladooda dadkaas sida qadasho loogu daray haddii ay nabadgelyadooda ilaalin waayaan annagana waxba ma dhowranayno garab baan u nahay waan garab taagannahay dadkaas iyaga oo walaaladana weyaan waa dadka iyagii weyaan waa dad soomaaliyeed waa dad isku